kula wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si walba aad oo maqlaysaan subax wanaagsan maalin wanaagsan habeen wanaagsan waqti walba inii tahayba wanaagsan kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey waxaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa dhibaatooyin waaweyn ayaa ka taagan dowladda deegaanka soomaalida shacabkii dowladda deegaanka soomaalidu ma carari karaan oo ma baxsan karaan oo ma taagnaan karaan oo ma noolaan karaan oo ma ganacsan karaan 5 arrimood oo waaweyn oo xukuumaddu ay gacanta ku hayso ayayna dhibana u yihiin dhalinyaradii iyo da'yartii xabsiyada ayay ka buuxaan 5taasi arrimood darteed ayayna xabsiyada uga buuxaan dhalinyaradii dowladda deegaanka soomaalida haddii xukuumaddu aysan waxba ka qabanina shacabka dowladda deegaanka soomaalidu in ay dilaacaan bay joogaan hadday mar dilaacaanna amni darro iyo dhibaato kasii waaweyn ayaa imaanaysa haddaba 5taasi arrimood maxay yihiin 5ta arrimood ee halista ay ugu jiraan shacabkii dowladda deegaanka soomaalida ee xabsiyada ay uga buuxaan ee noloshoodii waxa weeye lagu baabiiyey ee hadda ay taagan yihiin inay dilaacaan hadday dilaacaanna dhibaato ka weyn ay imaanayso midda hadda taagan maxay yihiin qodobkeenna koowaad baan ku dul istaagi doonaa waxaan qodobkeenna labaad iyadana isbarbardhig ku samayn doonaa xukuumaddii cabdi iley iyo xukuumaddan musdafe cagjar xukuumaddii cabdi iley iyo xukuumaddan musdafe cagjar ayaan iyadana isbarbardhig ku samayn doonaa waxaan dhanka kale dul istaagi doonaa dhibaatooyinkan ka taagan dowladda deegaanka soomaalidu ma ka taagan yihiin kilalada kale ee dalka etoobiya mise kilalkan dowladda deegaanka soomaalida ayay dhibaatadan keli u tahay dhibaatadanse xukuumadda musdafe cagjar miyaa abuurtay mise xukuumaddii hore cabdi iley baa ka dambaysay oo arrin taagan oo weligeed soo taagnayd ayay ahayd iyadana waan dul istaagi doonaa hadduu eebba idmo muuqaalka layg saara sheergareeya fogeeya meel dheer ka tura aragtidiinana noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownaya shacabka dowladda deegaanka soomaalidu waa shacab lagu tilmaamo horta shacab nabad jecel xukuumadaha taageera talba tii imaataba taageera tii lasoo diro oo waxa weye laga soo magacaaba Addis Ababa usacabatunta danahooda inta badan aan ka hadlin iska xoolo dhaqataa ayaa lagu sheegaa shacabkii marka noocaas ahaa ee nabadda jeclaa ee xukuumadaha taageerahayay waxay dhibana u yihiin dhibaato ay abuurtay xukuumadda jirta ay abuurtay ama tan hore tii hore ha noqoto ama midda taagan ha noqoto hadba waaqica markaa jira ayaa laga cabiri anigu markaa duulaan kuma yihi xukuumaddii hore tan hadda joogtana duulaan kuma yihi laakiin waxaan cabiraynaa oo aan ka hadlaynaa dhibaatada taagan idinka ayaa sheegi marka dhibaatadan ma xukuumaddana abuurtay mise xukuumadda kale ayaa abuurtay 5ta arrimood ee dhibanaha ay u yihiin shacabka dowladda deegaanka soomaalida waqti xaadirkan hadda aan taagannahay waa midda koowaade dhalinyaradii horta shaqola'aan bay u wada tuban yihiin kuwii xataa jaamacadaha soo dhameeyey waa shaqola'aan oo shaqola'aan bay dhalinyaradu yay tacbaan u yihiin ayagoo haddana shaqola'aana xuquuqihii kale ee dowladda federaalku ay ku lahaayeen ma helaan xuquuqaha maxaa ka mid a ay waayeen shacabku qodob koowaad baad haysateen oo waa shaqola'aan shaqo abuur badan ma aysan samaynin xukuumadda hadda jirta bal ee weliba kuwii degmooyinka ka shaqaynayey intay u dirtay waxa weeye laanta dabagalka shaqaalaha ayaa boqolaal shaqooyinka laga tiray biilkooda halkaa ka helayay oo wax yar etoobiya maxaa laga qaadanba biil maxaaba mishaar laga qaadan 4,000 3,000 oo bir qaadanayay ayaa dhulka lala simay dhalinyaradii marka waa shaqola'aan fursad shaqo ma aysan siinin xukuumadda musdafe cagjar ee hadda talada haysa waa qodobka koowaad qodobka labaad xuquuqdii dowladda federaalka ay ku lahaayeenna way ka hor istaagtay oo maxaa ka mid a waxaa ka mida waa midda koowaade baasaboorkii intay qaataan ay waddamada kale shaqo ugu raadsan lahaayeen baasaboorka dhibaatada ka taagan waad ogsoontihiin ma ogsoontihiin dhibaatada ka taagan daawada adigu maad og tahay baasaboorkii la qaadan jiray ee 1 day ama 2 days lagu qaadan jiray qofka shuruudaha buuxiya lagu qaadan jiray warqadda hoggaanka nabadgelyada inaad qaadato waxaa laga dhigay 6 bilood baa lagu xidhay 6 bilood bay kugu qaadanaysaa baasaboor faylkii inaad gaadho bal dhegaysta waa xuquuqay dowladda federaalka ku lahaayeen ilaa baasaboorka ma bixiso ma birintigarayso kilaladu ma birintigareeyo kilalada kale etoobiya waa lagu birintigareeya laakiin dowladda deegaanka soomaalida laguma birintigareeyo Addis Ababa bay u diraan maadaama Addis Ababa marka ay u diraan 6 bilood bay ku qaadan muwaadinkaas etoobiyaanka
dowladda deegaanka soomaalida ka socdo inuu baasaboor faylkiiba gaadho hadduuba xataa dadaalo weeye kii xanuunsanaa meeshaasuu dhibaato ku haysataa oo baasaboorkii ma helayo kii shaqo dalka dibaddiisa loogu yeedhay iyadana ma helayo kii xamaali ku tegi lahaa ma helayo kii waxa weye xajka ku aadi lahaa ma helayo kii ganacsi ku samaysan lahaa oo meelaha kale kaga soo adeegin lahaa ma helayo waa fursad shaqo abuur u noqon lahayd dhalinyarada soomaaliyeed baasaboorkaasayna u xaniban yihiin oo xuquuqdii dowladda federaalka ay ku lahaayeen dowladda deegaanka soomaalida ayaa ka hor istaagtay waa qodob labaad oo dhibaato ah oo nolosha bini aadamka dhibaato ku ah haddii la waayo waa dhibaato labaad oo xukuumaddu ay iyadu awoodo gacanteeda kaga saari karto shacabka dowladda deegaanka soomaalida laakiin aan laga saarayn waa qodobka labaad weeye qabsada qodobka saddexaad ganacsigii ka imaanayay soomaaliya waa kotorobaan baa layidhi dhammaantii hadduu gaari noqdo hadday bagaash noqdo hadduu macaash noqdo hadduu dhar noqdo hadduu raashin noqdo hadday biri iyo waxa weeye electronic noqdo wuxuu doonaba ha noqdo ganacsigii soomaaliya ka imaanayo waa kotorobaan baa layidhi axmaara dhexda u fadhida unug bay u fadhiyaan unug ayagoo u fadhiya oo axmaaraha oo xataa hal soomaaliya uusan tarixin ayay wadooyinka u fadhiyaan laba jaajar haddaad wadato mid waa lagaa qaadi haddaan labadaba lagaa qaadin laba telefon haddaad wadato mid waa lagaa qaadi haddaan labadaba lagaa qaadanin cidaad u qaylyanayso iyo cidaad u dacwoonaysana male gaadhina warkii daa gaadhi raran ama ku aan rarnayn warkii isagana daa waa qodobka saddexaad dhalinyaradu shaqo abuur bay ka heli lahaayeen wajaale magaalada jigjiga waxay u jirtaa 74 kilomitr iyo 73 kilomitr meelahaasay u jirtaa ganacsiga wajaale laga soo qaado haddii xor looga dhigi lahaa dhalinyarada 5,000 oo bir ninka ku bilaaba bishii wuxuu ugu yaraan shaqaysan lahaa markuu ugu yaryahay 10,000 bir ama noloshiisa 6,000 5,000 waa heli lahaa bishii banaankaasay kusoo dhici lahayd waa 5,000 oo bir keliya ninka ku bilaaba ninkii ka badan kusii bilaabana kaba sii fiicanba waa fursad labaad oo xukuumadda muslifa cagjar ama xukuumadda dowladda deegaanka soomaalidu ay uga faa'iideyn weyday shacabkeeda oo cunaha ay ku dhegan tahay oo noloshooda baabiinaya waa caqabadda waa dhibaatada waxa weeye ugu weyn ee haysata shacabka ay ka mid tahay iyadana waa qodobka saddexaad qodobka afraad xoolaha laga soo gala baabil laga soo gado ee etoobiya dhexdeedaba laga soo gado jigjiga markay irintaa ka soo marayaan waa kotorobaan xabashi baa u fadhida waa qodob afraad xabashi baa u fadhida dibida laga soo gado baabili fiirsada dibida baabili laga soo gado ee qaarna soomaaliya loo dhoofiye qaarna jigjiga lagu dhex gado haddaad soo qaado dad gaar ay u xidhan yihiin waa kotorobaan adigu ma soo safrisan kartid oo ma soo gadan kartid oo kama macaashi kartid waa qodob afraad waa dhibaato haysata shacabka dowladda deegaanka soomaalida qodobka shanaad ee dhibaatada ee noloshii baabiiyey gobollada dhammaan waxay u xidhan yihiin shaksiyaad laba qof bay u xidhan yihiin hadday noqoto qandaraas hadday noqoto elsi wax la yidhaahdo lc la yidhaahdo waxa weeye dowladda federaalku ay bixiso waxaa loo xidhay 2 qof ama 1 qof ama 3 qof baa loo xidhay tusaale aan usoo qaadana gobolka afdheer iyo gobolka shabeellaan soo qaadanaynaa gobollada dhanna waa sem waa isku mid baaritaanna waad ku samayn kartaan ciddii aan garanaynin cidda garanaysana way garanaysaa qandaraaska la siiyo gobollada markii qandaraas lagu leeyahay waxaa lagu bixiyaa dowladda deegaanka soomaalida markii la yidhaahdo waxa weye 4.5 kii soomaaliya ka jiro oo kale camal baa lagu bixiyaa qandaraasyada marka la soo dhajiyo dowladda deegaanka soomaalidu waxay sharciyaysay in gobolka afdheer oo kale qoondada la siinayo 2 shaksi bas ay qaataan waa 2 shaksi waa wixii dhannaa ee xuquuqda ahayd ee bulshadu ay u sinaayeen gobollada kale oo dhanna sidoo kale 2 shaksi gobolka shabeelle 1 nin bay u xidhan tahay qadaraaska dhan ee shabeelle waxa weeye percentage ay qaadanayaan 1 qof halkaa qof nimaan soo marin ama wuxuusan bixinin ma baxayo waa 1 qof oo shaksi ah oo waxa weeye ganacsado ah weeye halkaa qof bay dowladdu waxa weeye leen ugu jirtaa qadaraaska shabeelle la siinayo halkaa nin baa la siin halkaa nin wuxuu qaato isagaa marka saaxiibadiisa iyo walaaladii iyo kuwa ilmaadeertiya subcontract sii siinaya marka contractida dowladda ka baxaya halkaa shaksi baa la siin ama 2 shaksi baa la siinaya gobolka afdheerna 2 shaksi basaa la siiyaa qadaraaska dhan ee gobolka afdheer inta uu dhan yahay oo gobolka afdheer oo dhan degmooyinkiisa waxaa la bixinaya 2 shaksi baa la siiyaa 2daabaa dowladda waxa weye madaxweynaha u sharciyaysan waxay la siiyey iyagu dadka sii siiyaan hadday siinayaan elsidana sidoo kaleeto gobollada 1 qof ama 2 qof ayaa la siiyaa
elsi markaayna leehay waa saliid iyo raashin beec jaban ku imaanaya dowladda federaalka dibadda ka keenaysa qiimo jaban bay ku siinaysaa marka gobolada oo la dhihi kasii macaasha laakiin maxaa yaa la siiyey laba shaksi basay u xidhan tahay oo qofka saddexaad ma soo dhexgeli karo waa lagu baabiyey iyadana noloshii dowladda deegaanka soomaalida war hal shaksi ilaahay baa inagu dhaariye noloshii dhannayd ee gobol hal shaksi ma kafaalo qaadi karaa maba soo gaadhsiinayaba elsida waxaa lagu gataa naasireed dowladda deegaanka soomaalida ma soo gaadho naasireed baqaaradeeda lagu kala wareegaa ganacsato waaweyn oo etoobiyana la siiyaa etoobiyadaa kale u dhoofaa lamaba keenaba gudaha dowladda deegaanka soomaalida lama keeno iyadana baadhitaan kusoo sameeya in badan baan baadhitaan ku haya anugu waa qodobka shanaad oo dhibaatada ku ah nolosha shacabka dowladda deegaanka soomaalida xukuumadda shantaasi qodob xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida ayay dusha u saaran tahay iyadaana ugu talagashay inay baabiiso nolosha shacabka dowladda deegaanka soomaalida iyadoo marka da'yartii soomaaliyeed fursadahaasoo dhan laga qariyey oo aan loo ogolayn oo laga hortaagan yahay haddana markay dhaheen waddankan ka baxaynaayo baasaboor baan qaadana baasaboorkeen loo diiday 3 dhalinyara oo soomaaliya hadday jigjiga intay ka baxdo la arko iyagoo baska saaran dhexdaa lagu dejinayaa waxaa la leeyahay magafe u socoteen magafe ayaad u socoteen waad carari rabteen waddankaad ka baxayseen xabsiyada dhalinyaradu afkay ka hayaan sidaasay ka hayaan iyagoo la leeyahay magafe u soco xataa magafaba ma socdaan adogow adis ababa iyo dirdhab iyo meelahaasay u socdaanoo nolol bay raadsanayaan oo cadaadiskan iyo dhibaatadan iyo ololkan iyo baahidan bay ka cararayaan iyadoo sidaa ay taha waxaa leeyahay magafaad u socoteen magafe ayaad u socoteen dhibaatadaas ayaa haysata shacabkii dowladda deegaanka soomaalida xukuumaddiina ceelal bay soo sawiri iyo beeray soo sawiri dad ay sawirteen leeyihiin barwaaqaa jirta sidanaa jirtaa la leeyahay haddaba marka dhibaatada intaa la eg een ka soo sheekaynay ee shacabka dowladda deegaanka soomaalida haysata etoobiyada kale ma inala qabtaa mise inalama qabto xukuumadda hadda jirta miyaa abuurtay mise xukuumaddii horena way ka jirtay xukuumaddii horena may ka jirtay mise xukuumadda hadda jirta ayaa dhibaatadaa abuurtay waa laba qodob oo isa saaran waana israacin doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo si fiican u dhegaysta anugu xukuumaddana mucaarad kuma ihi tii horena muxaafid uma ihi laakiin xaqiiqada inaan dul istaagnaa muhiim ah kilalada kale ee dalka etoobiya dhibaatadan kama jirto dagaallaa ka socdo way jiraan dagaallo socdo oo dee ururaha dagaalamaya laakiin dhibaatadan hadda innagayna haysataa ee waa kotorobaan la leeyahay ee dhalinyaradii baasaboorka loo diidayo ee meella aysan u safri karin ee meella aysan usa dhaqaaqi karin xuquuqihii oo dhan laga hor istaagay waxa weye qandaraaskii aysan u tartami karin elsidii aan loo ogolayn meel walba cunaha lagu dheganya manqaska loo haysto kilalada kale ee dalka etoobiya kama jiraan kilalada kale ee dalka etoobiya waxaad arkaysaa 20 jir etoobiyana oo bilyanis haystaad arkaysaa aabbihiina aan ka dhaxlina isagu samaystay oo muxuu sameeyey qandaraasi u tartamaya elsiduu u tartamaya si xor iyo xalaal ah oo uusan ka jirin musuq maasuq ayay waxooda ugu tartamayaan ninkii hela ayaana qaadanaya dhanka kaleeto kama jiro wax la yidhaahdo baasha la yidhaahdo kotorobana kama jiro gaariga jigjigo kotorabanku waa markii la jiido oo hawaas la geeyo ama naasireed la geeyo ama etoobiyada kale la geeyo isla markaaba waxaa la siiyaa lamba baraydkii baa la siiyaa taarikadii gaadhiga horay baa laga siiyaa u fiirsada gawaanideenna la qaatay anikaydii la iga qaatay ee layidhi waxa weeye lambar baa kaa khaldan ee jigjiga lagu jiitay isla markiiba tartan baa loo galay aniguma tartamayaan idhi waxa weye xabashi baa qaatay xabashigii wuxuu la aaday etoobiya adisaba markuu saa usii galayba lambar balaydkii baa lagu dhejiyey ama lambarka waxa weye taarikada waxaad u taqaanaba taarikadii lambarkeeda horay baa laga siinaya dowladda hoosaa markaaba siinaysa marka kama jiro wax la yidhaahdo kotorobaan maxaa tusaale labaad u ah tusaale labaad waxa u ah gawaadhideenna lagu dejiyo jibrida ee la yidhaahdo waa kotorobaan raashinkay wadeen isla markaaba kuwa ay yaa la saaraa alaabtaa la saaro adisababa iyo oromi iyo xabashi bay u gashaa wax kotorobaanana kama jiro dukaamadoodaa lagu iibiyaayo way soo jabayaan afkay hayaan kotorobaan kama jiro waa fursad labaad oo ayna dheer yihiin baasaboorka aan u imaano baasaboorka inaga 6 bilood 7 bilood hal sano dhalinyaradeena jigjiga ay ku sugayaan ee warqadii hoggaanka nabadgelyada loo diidan yahay ee in farihii laga qaado loo diidan yahay ee la leeyahay waxa weye baasaboor hasiinin in laga hortaagan yahay 3 saacadood bay ku qaataan etoobiyaanka kale 3 saacadood bay ku qaataan adisababa ordoo taga tirii hawaasaa lagu qaataa gebigeedaba markaad emergency aad samayso
oo lacagta kun iyo xogaaga aad shubto oo akoonkii dowladda ku shubto isla markaaba xataa su'aal lama weydiiyo xageed u socotaa iyo xageed ugu socotaa iyo xageed ku aadi lama siiyo u fiirsada bariga Afrika iyo meel walba iyo tahriibayaasha waxa ugu badan waa Ethiopian passport Ethiopian inay wataan passport Ethiopian ayay wataan waa fursad ayna dheer yihiin oo kilalada kale u jirta weey inagana ka jirin xagga xoolaha aanu imaano xoolahooda laga soo safriyo Gambela ilaa iyo ay imaadaan Diridhaba qaybo kamid ay imaadaan wax kontrabaan lama yaqaano Ethiopia kale oo way isku qulqushaa kontrabaan iyadana ma aha kontrabaan iyadana ma aha xagga fursadaha shaqada aanu imaano ee dhalinyarada ay shaqo la'aan yihiin aanu imaano Ethiopia waxa ugu badan ee shaqo ay dhalinyaradu ka helaan waa saddex meelood weeye saddex soos bay Ethiopia dhalinyaradeedu ama shaqo ama da'yarteedu ay ku tiirsan yihiin oo shacabka Ethiopiaanku ay shaqada ugu badan ka helaan waa midda koowaad waa Ethiopian Airlines waxa ka shaqeynaya waa Ethiopian Soomaali kuma jirto waa qodobka koowaad raaca meel walba u raaca Ethiopian ba dhex taagan waa qodobka koowaad waa qodobka labaad waa Ethiopian Telecom way waa isgaarsiinta Ethiopia inagu waxba kuma lihine Ethiopian bas ayaa ka shaqeeya waa qodobka saddexaad waa bangiyada Ethiopia saddexdaasi soos baa shaqo laga helaa bangiyada Ethiopian bas shaqeeya Soomaali kuma jirto saddexdaasi ilood ee Ethiopia dhaqaalaheedu uu ku tirsan yahay boqolkiiba 90 shaqaalaheedu waxa weey dadkeedu ay shaqada ka helaan Soomaali kama hesho Ethiopian kale bas ka shaqeeya taasna wayna dheer yihiin oo shaqo abuur ayay haystaan inagu ayna haysanin oo da'yarteenu maanta ay shaqo la'aan ugu dhamaanayaan gudaha dawladda deegaanka Soomaalida isbarbardhig aanu imaanna marka labadii xukuumadood dhibaatooyinka aan ka sheekaynay waagi hore ma jireen mise maysa jirin hal dhibaato ma aysa jirin oo hadda ayay u badan tahay waa midda shaqo abuurka iyadoo waliba teeleyda ama Ethiopian Telecom iyo bangiyada iyo Ethiopian Airlines ayna waliba waligeeba shaqeeyna ka heli jirin oo caqabad soo taagneed ay tahay haddana xukuumadii Cabdi Ilay dhalinyaradu meel un bay lugta kula jireen ka ciidanku ku faraxsanaa xogaa buu ka jujufanayay meel uu ka qaataba midkan waxa weey kalena meel baa lugta lagu jiray dib u curasho wax la dhaha jiray shaqooyin badan baa istu saarnaa dadku waxa weey kulli way wada shaqeynayeen nin jaajus noqday nin ciidan noqday nin baa wax shaqo la'aan dadku ma islayn dadka shaqo la'aanta tuulooyinka joogana lacaga loo qaybinayay anu meel laga kare garan maaye lacaga loo qaybinayay qoys baadiye jooga oo aan 3 jeer lacag qaadanaynin bishii gudaheeda ma jirin xilligii Cabdi Ilay laakiin hadda lacagna ma helaan oo lacag lama qaybiyo raashimii badna waa istaageen shacabkii iyo tuulooyinka dadkii joogay iyo degmooyinka gaajay u dhamaanayaan iyo kuwii caasimada joogayba gaajay u dhamaanayaan lacagna looma qaybiyo waxba lama siiyo raashin looma keeno wax loo keena ma jiraba shaqo abo qoyska waxa weeye maanta aan lacagna qaadanaynin oo hay'adan lacag ka qaadanaynin wiilkoodina shaqo la'aan yahay maxay cunayaan dhalinyaradii markii baasaboorkiina loo diiday shaqo la'aanna ay dhacdo busaare shaqo la'aaneed ay dhacday Kismaayo Soomaaliya u wada dhuumanayaan inay halka galaan oo Soomaaliya ay ciidamo ka qortaan bay noqotay boqolaal baa bishii gasha Soomaaliya gasha oo ciidamo u dad kuwii new booliska goosanaya oo mishaar xataa fiican aan qaadanayn marka xagga shaqo abuurka markii laga eego xukuumadii hore Cabdi Ilay baa kaga fiicneed xukuumadda hadda jirta dhankan markii laga eego kontrabaankana xukuumadii Cabdi Ilay baa kaga fiicneed xukuumadda hadda jirta walow iyada naftirkeeda ay fitin badnayd dhibaato badnayd oo baabuurta ruufkooda waxa weey la jeexayay laakiin wixii soo gala ama wixii ay wataan Soomaalidu new booliska ama ka qaadi jiray ama u dayn jiray xabashi isbaare inta u dhigato ay suusu intay saarato Ethiopia lama gelaynin gaari Soomaali ay leedahay inta xaraash tartan lagu galo lama xabashi ma qaadanaynin laakiin waxa qaadanayo ama ka haysanaya ama ku siinayay xukuumadii Soomaalida hayde markaa jirtay xagga kontrabaankana dawladii hore Cabdi Ilay baa kaga fiicneed xukuumadda hadda jirta waa kaga fiicneed midan qadaraas bixinta iyo midan waxa weeye elsidana Cabdi Ilay wado uu jideeyay bay haydo xukuumadda hadda jirta isbedel baan sameyn si ay u tiri ilaa iyo hadda isbedel ma sameeynin wadadii bay haysaa wadadii iyada hayda Cabdi Ilay ayay wali ku taagan tahay marka wax isbedela iyo waxa wanaaga iyo waxay soo kordhisay xukuumadda hadda jirta ma jirto xumaanu bay soo kordhisay iyo dhibaatay soo kordhisay
waxayna taageertay oo ay raacday wadadii horeen ka cabanayna cabdi ilay unbay raacday tii unbay noqon tii unbay raacday tii unbay raacday marka waxa weeye waa halkii unbaa weli taaganahay haddayna kasii liidaninba isbarbardhig marka lagu sameeyo isbarbardhig aan ku samayno xagga waxqabadka tii hore dhaantay baa la dhihi karaa tii hore ayaa dhaantay xagga amniga aan u imaano xagga amniga urur dagaalamaya hadda la sheega ma jiro oo ururada hadda ma dagaalamaan tii hore ururay la dagaalamaysay ururada marka dhinaca loo saaro ururada meesha laga bixiyo amniga iyo kala dambaynta iyo xasiloonida bulshada dhexdeeda tii hore kaga fiicnayd iyadana tii hore ayaa kaga fiicnayd marka waxaa la dhihi karaa xukuumaddu waxay soo kordhisay iyo wax isbedela oo wanaagsan ay soo kordhisay ma jiro oo aan ka ahayn caqabado dhibaato ku ah nolosha shacabka dowladda deegaanka Soomaalida marka waxaan leeyahay xukuumadda hadda jirtay uu hogaamiyo Mustafa Cajar anigu mucaarad mi laakiin waxaan iftiiminayaa xaqiiqooyinka jira mudane madaxweyne adaa deegaanka madaxweyne u yahay bal hoos u fiiri oo baasaboorka dhalinyarada u fasax oo kontrabanka jooji wax kontrabaan la yiraahdo adduunka kama jiree jooji oo xabashadan dadka ka qabo xabashadan dadka ku soo fasaxday ka qabo oo dadkan waxa weeye qooleysatada ee gobol walba laba qof u xidhay ka qabo oo dadku ha wax u sinaadaan oo tartan waxa weeye qandaraasada ha loo sinaado ha la wada tartamo oo ha loo sinaado xuquuqda ha loo sinaado oo xuquuqda Itoobiyaanka ay leeyihiin kuweenana ha yeeshaan oo shaqada la raadsanaya ha loo sinaado oo fursadaha dhalinyarada aad ka hortaagan tahay kada haddaad shaqo abuur u wada samayn karin baasaboor dhalinyaradu ha qaataan bari ninkii soo shaqaysta dhulkiisu kula soo laaban nin walba deegaankiisa iyo degmadiisu dhisan dhaqaalaha halkaaba lagu soo celin waad aragtay qabidaar sida ay qurba joogta u dhisteen goday jigjiga sida loo dhistay waad aragtay goday sida loo dhisay waad aragtay sidaasi lamida ayay qurba joogtu intay lacag soo shaqaystaan ay u qaadanayaan dhalinyarada shaqo haddaada u wada haynin oo shaqo ku filan oo noloshooda ku filan aada Itoobiya uga haynin iska daa baasaboorka ha qaataan u fudaydiya oo kuwa xanuunsan u fudaydiya oo kontrabankan iyo hantidan la dhacaya xabashadan aad fasaxday jooji ayaan leenahay fariinta gaarsiiya horay waxa weeye share gareeya like saara muuqaalka meel dheer ka tuura idinkana insha Allah taala